Murtida koowaad, kolkii uu rabo inuu aamus ku yiraahdo haweeney, ninka caadiga ah wuxuu ku yiraahdaa naga aamus. Ninka caaqilka ah wuxuu ku dhahaa bishimahaaga aad bay u qurux badan yihiin markii aad isku qabato. 2. Goortii aad lacag amaahanayso ka dayso qof baasaysta ah, dhanka xun wax kasta ka eega, marnaba ma filayo in aad dib ugu soo celin doonto lacagtiisa. Haddii aad jeceshahay 2 qof, dooro kan dambe, sababtoo ah haddii aad si dhab ah u jeceshahay kan koowaad, ma aadan jeclaateen kan labaad. Haddii aad tahay shacab, wax ha xadin, been ha sheegin, wax ha qiyaamin, sababtoo ah siyaasigu ma jecla tartanka. Waagii hore, daris waxaa ugu xumaa kan ku yiraahda dooradaada iga cesho. Waayadan dambe, daris waxaa ugu xun kan baasweedka ku xirta internetka waafigooda. Haddii aadan diyaar u ahayn in aad u dhimato xornimadaada, ka dhex saar ereyga xornimo hadalladaada. Cunsurnimadu ma ahan caqiido ee waa cudur ku dhaca dhimirka maskaxda. Marnaba ma kala saari kartid nabad iyo xornimo, waayo ruuxna nabad kuma noolaado ilaa uu xornimo haysto mooye. Kuwa hurda oo dhan si ay u kacaan, hal ruux oo baraaruga ayaa ku filan. Ma jirto in aad noqoto madow fiican ama caddaan fiican, ee waxaa jirta in aad noqoto qof fiican ama qof xun. Nabadoon noqo, akhyaar noqo, sharciga ha ku xadgudbin, ruux kastana xushmee oo wanaag u muuji, balse hadduu midib kugu soo xadgudbo, xawaalaha u dir. Mustaqbalka waxaa iska leh kuwa u sii diyaargarooba maanta. Haddii aad raadinayso wax aad adigu leedahay, qof kasta oo kaa hor yimaada, ruuxuu doonaba ha ahaadee, waa dambiile. Waxa ay dad badani moog yihiin in hal buug uu beddeli karo nolosha qofka oo dhan.